Hello, 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 hello. Soobata, soobata, soobata. Soobata share ma ku dhufta. Soo gala. Soo gala, soo gala, soo gala. May maqlaa. Malay maqlaa. May maqashaan. May maqashaan. Malay maqlaa. Haa ii soo qora. Malay maqlaa. Malay maqlaa. May maqashaan. Haa ii soo qora no. May maqashaan. 76 people. Waa iska bilaabayaa. Please ii share gareeya. weligay ii share gareeya ma dhihin. All over the world aan rabaa in layga daawado. ii share gareeya. waa idin salaamayaa. waa kaba yare. waxaa idinku soo salaamayaa UK, London. war new ah nig dhaha marka no. war new ah nig dhaha. gabadhii xanuunsanayd ee Aamina Dhool markii xanuunkeeda la soo sheegay waad la socoteen waadna wada daawanayseen. waxaa la magacaabay dad u shaqeeya Universal TV oo wariyaal ah qaarna ay yihiin fanaaniin. North America waxaa laga magacaabay deeq darajo oo u shaqeeya Universal TV oo Minneapolis ila degan. waa walaalkay aan soo shaqeynayna oo lacagta soo aruurinay saa wada ogtihiin. Australia waxaa laga magacaabay Bafo. Hargeysa caabin in la yiraahdo laga magacaabay. UK London waxaa laga magacaabay Maama Faynus Sheekh Daahir, Xuseen Shire iyo Khalid Yare. okay maxaa dhacay marka? Salman Channel Turkiga laga magacaabay isagana. intaasoo qofood video waa la duubay waa la magacaabay waa ogeydeen soo ma? waxaa dhacday intaasoo qof oo la magacaabay waxaa la haayaa deeq darajo oo kaliya oo aan anigu caawinayay oo Minneapolis la degana. ninka la yiraahdo Faarax Murtiile oo abwaanka ah lacag ayuu soo aruuriyay kamerana laga duubay waa la duubay lacagta markuu wareejinayay lamana soo dayn ilaa iyo hadda. Abuukar Mahdiyaana ka duubay ninka la dhahayo oo Universal TV agaasime iyo wuxuu u yahay maaqaani. Faynus Sheekh Daahir iyo asaga loo dhiibay asna waa duubay. Maama Faynus waan ku hanweynahay waxay hayso in la helayaan aaminsanahay. laakiin kaameradii laga duubay Maama Faynus lacagta markuu Faarax Murtiile ku wareejinayay wili lama soo dayn. maalinkii la cilaamiyay Aamina Dhool in la caawiyo Universal TV maalinkii la cilaamiyeen ma Aamina Dhool in lacag loo aruuriyo ilaa iyo maanta lacag ay aruurinayeen. dadka reer London oo aan eedaynayno oo leenahay London way jiifaan waa idin dhaliilayna. horta London ay xaal qaata. reer London xaal qaata. waa xisaabtamaynaa meeshan waa la xisaabtamayaa. ninkii meel xanuunta maxaa la dhihi jiray usoo soo dhaqdhaqaaqa. xisaaba meeshan tala xisaabna xil ma laha. reer London lacaga badan laga aruuriyay. investigation aan sameeyay ilaa iyo xalay ilaa habeen hore waxaan ku jiray baaritaan. London dadka jooga lacag baa laga aruuriyay. Universal TV laba waxyaabood inay soo cadeeyaan waay. kow lacagaha London ay ka aruuriyeen inay soo bandhigaan waay. labo lacagahay isku qoreen oo ayagu dhaheen intaasaan isku qorqornay waa inay soo cadeeyaan. haddaysan bixinayninna ma bixinayna afcad ay u dhahaan ilaa xoog laguma leh ayagaa isku qoreen.
waxa ugu weyn oo hadda aan aad uga walwalsanahay oon habeen hore la ii sheegay xalay maan habeen hore la ii sheegay Bafo from Australia oo ah shaqaalaha Universal TV in uu 8,000 lacag ka badan 8,000 waa lambarka la ii sheegay laakiin I know inay ka badan tahay no mala dambi laha leeyahay dambina cadaab leh wixii dambi Allah naga cafiyo laakiin 8,000 la ii sheegay inuu haayo oo Australia ka soo arooriyay Bafo lacagta markuu arooriyay mar hore ahayd ilaan dhaqdhaqaaqa iyo aruurinta markii la bilaabay hadda ma ahayna bilaa ka soo wareegtay Bafo ilaa iyo hadda lacagta Aamina Dhool oo uga soo arooriyay dadka Soomaaliyeed ee Australia degan sooma gudbin habeen hore ogaaday inuu 8,000 sheegayay oo North America dad jooga la hablo ku yiri 8,000 aan u hayaa laakiin Abuukar Mahdi aan ku diraaya Abuukar Mahdi iyo Universal TV lacagaha London ka aruuriyeen lagama haayo lacagaha ay London ka aruuriyeen lagama haayo cadayna lagama haayo lacagii Faarax Murtiile u dhiibay video-goodi hadday hadda xataa soo bandhigaan anaga we don't care laakiin markaad video duubto oo qof abwaan oo lacag soo aruuriyo video ka duubto san anigu soo bandhigay in u soo bandhigay ahayd taas ka dhaaf Faarax Murtiile nool oo Faynus Daahira joogto sida la sheegana Faynus way joogto meesha lacagta markii la wareejinayay marka waxa taas ka sii daran oo u qarsoon Universal iyo Abuukar Mahdi UK waxaan soo ogaaday investigation badan iyo baaritaan badan aan sameeyay in dad badan oo waliba business u badan lacag laga soo aruuriyay information-kooda iyo magacyadooda iyo business-yadoodana waa la ii soo wadaa magacyadooda dadka lacagta laga qaaday waa la ii soo wadaa saacado ii soo jiraa waana soo sheegaa wayna isgaran doonaan no Sir Maxamuud ilaahay khayr siiyo uu ila shaqeynooyaa Sir Maxamuud baaritaan fiican oo galay uu ila shaqeynooyaa magacyadii dadka lacagaha laga aruuriyay ee businesska ee Reeland dhan uu soo wadaa waxa marka la yaab leh Bafo 100 maran u baaqay on dhahay brother lacagta reer Australia dir soo shub u dir Aamina Dhool Bafo hadda maxaa iga soo gaartay oo la ii soo sheegay inuu Abuukar Mahdi ku xiran yahay oo rabaayo u yahay lacagtan Abuukar Mahdi inuu ku diro oo rabo Abuukar Mahdi markii 8,000 Australia markii lagu diraayo ma Abuukar Mahdi xanuunsan oo lacagta iska leh bas Aamina Dhool iska leh timir lafa ku jirta Soomaaliya meesha waxba ku jira Bafo 8,000 ya haday ka badan tahay Australia ka soo aruurisay waa soo direeno Aamina Dhool ku soo direy hadaan soo direynina reer Australia hadaa imaqleysiin lacagihii aad u dhiibteen Bafo ka raadsada Aamina Dhool ma soo socdaanay ya marka aniga waxaan la yaabanahay Aamina Dhool qof jid laga helay miyaa kaalay ma qof jid laga helaa dad ma laha miyaa Aamina Dhool waa gabar xanuunsan waa hooyo Soomaaliyeed ilma agoona haysato dollar Aamina Dhool loogu tala galay qofkii cuna aakhiritan la gaarin adduunku ku eedaano aakhiritan la gaarin adduunku ku eedaa mana la cuni karo lama cuni karo Bafo 24 hours hatta kuma siinayno Australia saacad waqtiga hadda u tahay ma aqaan aniga laakiin lacag kasna keento waayno Abuukar Mahdi ay baratay Abuukar Mahdi ma lacagtu waa ruuso xanuunsan Universal TV aniga London aan joogaa gurigiina aan joogaa investigation badan waan sameeyay iyo baaritaan badan waa inaad ka soo garbaxdaan Aamina Dhool lacagaha London ka aruuriseen waa inaad keentaan tii ay isku qorqorteen hadaad doontaan ka noqda hadaad rabtaan ila idinka iskala wixiina moog laakiin tii dadka London ka aruuriseen oo hadda informationadooda oo Sir Maxamuud ii soo wado inaad banaanka keentaan waayo ma Faynus Daahir wili lama kulmin insha Allah waa arki doonaa Ilaahay xifdiyo oo hooyo Soomaaliyeed waxay haysan oo ku kalsoonaa in la helaayo laakiin timir lafa ku jirtano ya Bafo iga gaarsiiyay fariintan Bafo 8,000 iyo haday ka badan tahay lacagta ay haysid Abuukar Mahdi hadaad ku soo qorto waa leedin ogyahay ana Abuukar Mahdi waa la ogyahay xalay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo maanta investigation ilaa Australia la hadlayaan UK-na waa ka adeegtay London waa ka adeegtay Sir Maxamuud kor Allah ka dhigo waan ku sugayaa mar dhow ii soo socdaa liis dhan la ii soo wadaa lacag dad business laga aruuriyay wow good luck isbaranayna no
باي باي اصحابتك بليز شير نو